بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. walaalaha Soomaaliyeed meel joogtaan ba Ilaahay subxaanahu wa ta'aala idinku ammaan yeelo. Cidii dhibandhibka Allah ka qaado, cidii dalla Allah oo fiinta baahan Allah deeqo, inta bugta Allah bogsiyo, intii dhimatay Allah u naxariisto, waalidiinteena Allah u naxariisto, annagana Allah nooga daba naxariisto. dalka diinta dadka iyo dowladnimadaba Ilaahay subxaanahu wa ta'aala hayna badbaadiyo. waxaan rabaa inaan ka jawaabo hadal baraha bulshada marayay gabar wadaada oo tiri nin faqiirayaan la guursan oo falcelin tiro badan ka dhalatay. waxaan arkay qaar leh aayadii aayad quraan ay ku xadgudubtay. waxaan kaloo arkay hay-addii awqaafta ama wasaaradda awqaafta iyo diinta oo gabadhii raaligelin kaga yeersisay intay macallinkeedii soo horfariisiyeen. waa su-aale gabadhu maxay sheegtay oo ay raaligelin ka bixinaysaa? nin faqiirayaan la guursan waa hadalkii nabiga sala allahu aleyh waali wasalam, oo nabigana ma raaligelin bay ku khasbi lahayd hay-adda awqaafta iyo dacwada. ma raaligelin bay nabigana dhihi lahayd ka dalbi lahayd sala allahu aleyh waali wasalam. arrintaas waa dulmi, wax macnaana kuma fadhido, wax cilmiya asal kuma leh. masaladaasi wax cilmiya oo ay ku qotonto lama arko. ilaahay subxaana wa tacaala ninkii yiri aayad bay gafteen, ninaan garanaya ma ahayn. hadduu shiikh la garanayo yahay macnay samayn lahayd, laakiin nimaan garanaya ma aha. maadaama aanan garanayn, aqoontiisana aanan garanayn, waxba kama soo qaadin. wax aayado ay gabadhaas ku xadgudubtay ma jiraan. waxaan arkay dad doodaya oo u badan dad dhalinyaro ah oo diinta si fiican u aqoon oo leh ilaahay wuxuu yiri wa ankixu layaama minkum wasaalixiina min cibaadikum wa imaa'ikum in yakunuu fuqara'a yugnihim allahu min fadlih wallahu waasicun caliim. aayaddaas waxaa laga garanayaa lays amraya in loo guuriyo dadka fuqarada ah. aayaddaas khalad bay ka fahmeen ciddii akhrisay. aayaddan waxay ka hadlaysaa addoon, rag iyo dumara. addoon waa qof la leeyahay. min cibaadikum, imaa'ikum wa cibaadikum baa laleeyahay. wa ankixu layaama, u guuriya hablaha addoomaha ah. wa ankixu layaama minkum wasaalixiina min cibaadikum, iyo kuwa wanaagsan oo addoomihiina, iyo wa imaa'ikum, addoomihiina dumarka ah, ragga iyo dumarka ah. in yakunuu fuqara'a yugnihim allahu min fadlih. ilaahay baa fududaynaya hadday fuqara yihiin. addoonka cuntadiisa iyo noloshiisa waxaa kafaalo qaada sayidkiisa, isagaa laga rabaa inuu biilo. aayadda marka addoon bay ka hadlaysaa. aayadda ku xigta weeye aayadda dadka xortaa ka hadlaysa. ma arkaysaa? oo maxay leedahay? walyastacfif aladiina laa yajiduuna nikaaxan xataa yugniyahum allahu min fadlih. dadkaan awoodi karin, ma garanaysaa inay mu'nata nikaax la yimaadaan, ha sabreen ilaa uu ilaahay qani ka dhigo, wax siiyo. qofaan xoolo haysan guur shuqul kuma leh. nabigu sal ll ly slam aayaddaas tafsiirkeeda wuxuu yidhi yaa macshara shabaabi man istataaca minkum albaa'ata falyatazawaj. ninkii kara mu'nata nikaax, ninkii guri degi kara, aqalkii dhigan kara, gabadhii biilan kara, nolosheedii la bixi kara, ha guursado. wuxuu yidhi waman lam yastatic fa calayhi bisawm. dadka qaar baa waxa laga yaaba inay dhahaan nikaaxa la sheegayaa waa inuu haweenta u tegi karo. muxuu ka soomayaa haddii uusan awoodin? haddaysan awooddu ahayn awooddii lacagta ee awooddii jismiga ay tahay, maxaa loo leeyahay soom? waa masale khaldan iyadana. marka aayaddaas iyo xadiidka waxaan ka garanaynaa qofka aan waxba haysan inuu sabro oo soomo. ma arkaysaa? walyastacfifi aladiina laa yajiduuna nikaaxan xataa yugniyahum allahu min fadli. ilaa uu ilaahay qani ka dhigo oo deeqo. taasi waa qodob. ilaahay wuxuu kaloo yidhi liyunfiq duu sacatin min sacatih waman qudira calayhi risquhu falyunfiq mima aataahu allah laa yukallifu allahu nafsan ila ma aataaha sayajcalu allahu bacda cusrin yusra. qofkii taajirihii gabadha nafaqo badan ha siiyo fiican. qofkii ku yar tahay waman qudira calayhi risquhu, ninkii la koobay ama la yareeyey risqigiisana
فلينفق مما آتاه الله وحي إلهي سيي أنبو إساقنا الله إيمانيا أو وحبو بحنيا لكن مد والباء وحبو بحنيا نما نفقها يسن ناك ما قرسن كرو إلهي مركوات والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة محير وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وحالة ربا مرشا يا مصروف إجماع وي إجماع دب أن وعلي إجماع وي إنه واجب كتهي زوجكو إنه نفقه حاسكي سليمان ونما العقا يسنو فقيره وفرمار النفقه كيني كرا نفقه maxay ka koobantahay waxay ka koobantahay guri waxay ka koobantahay marasho iyo masruuf waxay ka koobantahay cuntadii iyo cabidii iyo waxa la wixii haweentaas ay u baahnayd ka koobantahay waxa ku jira ilaankeedii waxa ku jira dawadeedii waxa ku jira nolosheedii oo dhan ninkaan bixin karin ayaa gurigiina joog maxaa mas'uuliyad dusha ka saari kara nimaan biilan karin haween goormo mas'uuliyadda qaadi kara أمر بالسي وليستعفف الذين وواجب أمركم هدان لهلين قرينة كصرفس موجودة كمر بقى النبي قوتي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس الأورنجري رضي الله عنها نبا عدد دي وحكو نبي وأمريني ريرهي بادي عدد أي كلها حق وكلها مركز قبر بويري ميل بويري هالكاس قلاداس لجوج أو عدد كل ما يسمرك لما يستطيع أتمي waxaan ku iri tiri yaa rasuulallah waan xalaaloobay labada nin baa soo doonay ibnu abil jahm iyo ninka la yiraahdo abil jahm iyo waxa soo doonay bay tiri muawiyah ibn abi sufyan radiyallahu anhuma labada kii guursada wuxuu yiri ama muawiyah fa su'lukun la maalana kaas ayr weey xoolo male iska daa guursan waa faqiir xoolo male ninka kalena wuxuu yiri la yadau العصا عن عاتقه رواية كلام إنه ضراب للنساء رواية إنها وين كدلي هاي سوق دوان تفسير رواية ده كلوي هوين كلها يا هوتين قال كفسرتي أشي سجرب كمدتشي واني سفر بدن لكن رواية ده كلام حديث متفق بخاري مسلم بكويا حين النبي صلى الله عليه وسلم معاوية مركز لي سعلوك ويبي صادق وجودين سعلوك لا مال له ورواني وان حول الهين وفرمرني اسكا عرب وقبل انتاسي شيكتي انتاسي رالي قلن كبحنيتا هذا النبي قال ويدين لهايدين انو رالي قلن بحيه صلى الله عليه وآله وسلم هيئة مساسي ويدين لهاي اما وزارة الاوقاف يعني الدين تو ان لفهمين يفقه وان دادك دعين واجماع نفقده اني واجب كتاهي ننك نفقه محلي هذا مرك نما نفقه أودي سو فقير ما نما فقيري سو إنه مال فريست ما سو إنه صبره وهذا شهوة هيسي وصوم ما فإنه له وجاء سو نيك اللي يسقى ما ها دومك قلي داد حرا لقى الله gabar dhaada adigu ma uu ogoshahay inay gaajoto nin guriga ku gaajoto wuxuu leeyahay guriga wuxuu leeyahay naftiisa oo inuu gabadha jamaaco ya hayta waxaas ma xoolo miya soo gabar ma reer dhaleen oo korsadeen ya waxaasi wax diina ma gabadhii wadaad ahayd hadalkay sheegtay hadal sax oo ahaa ninkan awoodin dadku waa laba nooc qolo waxbay awoodaa qolo waxma awoodo ninkan wax awoodin oo faqiira wadaadnimo yuu kugu khaldin fiicnaantiisa kaliya ku khaldin shaxshaxda uu yahay oo kaliya ku khaldin ujeedada intaas waa inta saxda ah mantaqa sax ah way ninkan xoolo lahayn oo wax guursan karin xoolaha waxaan ka hadlaynaa khasab ma inuu milyaneer yahay qof laakiin wax haystaayo gabadhii markuu caaw la aqal galo waa inuu biilan karaa إنه بيل هايستايو نولش بحين كرايو على الأقل ما ننتي وجبة واحدة وإن هيلي كران إنه مرقد إيان مرق انتعونان وقيران إيا كبدا هدوسن أودي كرين ناف مالي إذا نقور سنة بيسو حال قصمين يمسيها رقو دن سرير تواكوف ليه وحال إسداريو لوكا دوين أود اللي إسداريا أيتاي وننا اللي صبر أو صون ننا اللي هاي قورسو أو لغو بورني هاي قورسو lana rabaa in loo guuriyo hadduu ku filan yahay muunatu nikaaxiisa haysto
reerkiisa dhaqan karo kuna filan yahay physically ku filan yahay jamaaci gacan ahaanna ku filan yahay nafaqadii in loo guuriyo ay tahay akhlaaqdiisuna wanaagsan tahay diintiisuna wanaagsan tahay in loo guuriyo ay tahay kaa weeye laakiin nin faqiiraha guursan buuq baa laga kiciyey ilaa gabadhii la raaligelin bixi oo maxay raaligelin ka bixisaa iyadu waa yeeshay oo macallinkeedii baa lagu baqsaday waa gabar wanaagsan waana ku mahadsan tahay inay macallinkeeda ixtiraamtay laakiin macallinkeedu isagaa u baahan in macallin loo noqdo wax la baro oo fiqiga loo fatxiyo ma ujeedaa dhagdhag maaha diintu waa fiqhi weeye faham weeye ma ujeedaa cilmi maaha waa faham bay rabtaa oo muxuu yahay man yurid illahu bihi khayran yufaqihu fi diin ninka aan fahmi karin nebigu hadalku yiri sal alla alay slam fasucluukun laa maala lahu eedda iyo dembiga ka dhigaya